waxa ugu horreeya waxa imtixaan ka hor qaadan iman ka hor waxaa lagaa filanayaa inaad baratay inaad isdiyaariso si joogto aad isu diyaariso inta badan dadka isku daya inay imtixaan galaan markay galahayaan ay isdiyaariyaan kuma guuleystaan marka waxaan rajaynayaa inaad soo diyaariseen meel degan oo aad wax ku akhrisataan inaad raadsataan inta tabartiinu tahay haddii guriga ayna suuragal ahayn guri qaraabo tag haddayna suuragal ahayn saaxiibkaa tag haddayna suuragal xataa masjidka tag geed hoos tag meesha kuugu munaasabsan inaad wax ku fahmayso inaad tagtaa loo baahan yahay waxaa kaloo iyadana lagaga baahan yahay inaad haddii aad hesho asxaab wax baran haya oo saaxiibada oo isla diyaarisaan aad wax la akhrisato iyaga oo aad su-aalo isweydiisaan oo saa aad wax isula barataan mida afraad ugu dambeysa waxaa weeye duruusta waxaa lagu bartaa oo la isugu diyaariyaa inaad soo koobto oo markii aad cutub aragtaba nuxurkiisa aad soo koobto koobitaankaas wuxuu kaa caawinaya markaad akhrido inaad fahanto wanaagga iyo waxa nuxurka meesha ku jira la soo baxdo ayuu kaa caawinaya ugu dambeyn inaadan waqti iskaga dhuminin waxyaabaha suuqa wareegaya mararka qaarkood sida qishka iyo xawaalo midka waqti ha iskaga dhuminin imtixaanka intaadan gelin ka hor oo markaad maalintaas aad imaanayso habeenkaas waxaa lagaga baahan yahay inaad agabkaaga waxaad u baahantahay aad diyaariso intaadan seexanin ta kuugu daran waxaa weeye subax waagi intuu kuu beriyo adoo waxba uusan diyaar ku ahayn inaad ordo kolba dhinacaad u cararto dhibaatay kugu noqonaysa marka isdiyaari wixii aad u baahnayd hadduu noqon lahaa qalin hadduu noqon lahaa dhar hadduu noqon lahaa kabo hadduu noqon lahaa biyo meeladoo koog seexo ta kale wax yar dulmar intaadan seexanin wixii aad soo gaabisay ama samarigii ama mulakhaska aad soo qaadatay wax yar dulmar oo intaadan seexanin si fiican u fiir laakiin waxba isku daalinin inaad akhris dheer gasho si fiican u seexo hurdada ka dhirag habeenkaas dad baa soo jeeda way dhafraan laakiin faa'iido badan kama gaaraan salaad subax markaad u kacdana intaad ducaysato tukato ka bacdi waxaad sudiya ha ku laaban hurdada bax oo iskuulkaaga aad qodobka ugu dambeeya oo maalinta inaad samayso loogaga baahan waxa weeyaan haddii meesha aad u socotay ay 10 daqiiqo qaadanaysay markaad si caadi u baxdo ugu yaraan 30 daqiiqo gee wadada inay xirantaa laga yaabaa in mataqaanaa waxyaabo duruufo kala yimaadama laga yaabaa marka ha dib dhicin oo imow waqti hore meesha lagaga baahan inaad timaado waxyaabaha lagu ogol yahay soo qaadato afar arrin baan kuu sheegaya oo laga yaabo inay ku caawiyaan markaad soo qaadato ugu horeysa waxaa weeye uniformkaaga dharkii ardayga looga baahna inaad soo xirato arrinkaas socodka markaad aad soconayso wuu kaa caawinaya haddii matalan jid la xidhay oo adiga uniform qabto wuu kaa caawinaya xarunta markaad soo galaysana wuu kaa caawinaya waxaa kaloo soo qaadanaysaa aqoonsigaaga ama ID-gaaga ay wasaaraddu bixisay yaad soo qaadanaysaa taasina waxay kuu fududeynaysaa iyaduna inaad gasho oo lagu ogolaado xarunta mid saddexaad xirmo qalama soo qaado qofka imtixaanka ilaalinaya qalimo ma hayo adigu inaad soo qaato qalimadaada yaa lagaga baahan yahay hadduu mid kaa hadlaabo inaad ku kaloo dheeraada aad haysato haddii ay suuragal ku tahay inaad soo qaadato biyo soo qaadato xiran oo aad cabayso intaad meesha joogto imtixaanka gudihiisa intaad ku jirto marka isku day inaad fasalka gasho ugu yaraan 15 daqiiqo ka hor imtixaanka intaan la gelin ugu yaraan 30 daqiiqo ka hor inaad xarunta timaado imtixaanka intaan bilaabanin hubso inaadan wadanin wax qish u muuqda oo lagaga shakiyo maxaa le waxaa dhici karta waqti inuu kaaga dhumo adoo lagu baarbaaraya intaas oo dhib kaaga yimaado arrintaas si degan u fariiso qofna ha tilmaamin maxaa le waxaa dhici karta inaad tiraahdo qof fariisooda wax u sheeg tiraahdo oo qofka imtixaanka ilaalinayay uu inaad qishaysa kuu maleeyo oo dhibka arrinta uu kaa soo gaaro aqoonsigaaga miiskaaga dhinaca midigta ka saar sawirkana korka ha joogo si qofka baaraya markuu yimaado meesha uusan waqti kaaga dhumin adigana uusan ku weydiin marka sawirka kor u qaad kor u jeedi miiska dhinaca midigta ana iska saar buugga jawaabaha waxa lagu qorayaa waa midkan marka hubso macluumaadka ama xogta halkan ku taala inaad si fiican u qorto magacaaga dugsigaaga xarunta aad joogto roll numberkaaga fasalka aad joogto maadada iyo taariikhda haddaad ka tagto si kastoo wuxuu qorto lama garanayo waxaan dadkii qoray laakiin ha taabanin labada meelood ugu sareysa ee kood ku qoran yahay meelaha adigu ma lihid inta ka hooseysa ayaad buuxinaysaa far la akhrin karo oo muuqato oo wanaagsan baad ku buuxinaysaa waana dhammaystiraysaa insha Allah tacaala intaas marka laga tago jawaabaha laba arrimood baan yaan kaala hadlayaa waxa weeye jawaabaha sahlan
dhamaystir waqtiga iskaga dhuminin jawaab adag oo laga yaabo kuwa aad garanayso waqtigu ka dhaco marka kuwa ku sahlan dhamaystir inta badanna jawaabta kugu soo dhacda marka ugu horeysa ayaa saxa kadibna jawaabaha adag u gudub intaas waxa weeye marka imtixaanka timaado iyo waxyaabaha aad qaban lahayd waxaan jeclaan lahaa inaan wax yar marka idin la wadaago waxyaabaha ka reeban qofku in meesha la yimaado waxyaabaha ka reeban waxa ugu horeeya inaad la soo gasho xarunta maaha classka maaha fasalka xarunta inaad la soo gasho mobile smartphone saacad camera leh iyo waxyaabaha la midka computer inaad la soo gasho xarunta inaad la soo gasho lama ogolo u fiirso maaha fasalka waa xarunta dhexdeeda haddii lagugu arko inaad la soo gashay waxaa loo qaadanayaa inaad qish meesha ula timid qolka imtixaanka inaad la gasho buug iyadana lama ogolo buug waad la soo geli kartaa xarunta laakiin qolka imtixaanka lama geli kartid in wax musuq u muuqda aad samayso waxaa dhacday sanad hore qof kale imtixaan u gala isku dayay waxaa lagu qasbanaaday labadii qofba in la xiro yaa lagu qasbanaaday khasaaray keentay ardayga imtixaanka wuu waayay dib uguma soo laabanin qofkii u galayeyna in la xiro ayay noqotay marka arrintaasi waxyaabaha lamidka ha isku dayin oo musuqa qish inaad ama qaadato adugu ama aad qof kala tusto warqad inaad kor u qaado haddaad qof dhinacaaga jooga ama gadaashaada jooga aad tusto wixii aad qoraysay isaga intaan la gaarin adiga ayaa imtixaankaaga la kansal garaynaya oo dhibkaa soo gaaraya marka taasna ha samaynin buuq iyo qaylo inaad qayb ka noqoto haddii meel rabsha ka dhacdo tabartaada inta ka fogow oo ka carar maxaa yeelay qofka meesha iman haya oo dadkan la xisaabtamaya hadhow kala garan mahay yaa daawanayay iyo yaa buuqa samaynayay marka waxay kugu jirtaa dantu inaad dhinac uga istaagto oodan buuq iyo qaylo qayb ka noqonin haddii kale hadhow dhibaato kale ayaa kaa soo gaaraysa waxaa kaloo iyadana aan la ogolayn waraaqaha imtixaanka aad ku qoraysa galaaska ula baxdo haddii galaaska aad kala baxdo jawaabtaada fasalka aad kala baxdo kulama soo laaban kartid jawaabtaana la aqbali maayo marka inta aadan bixin jawaabaha kaga tag macalinka ilaalinaya meesha inaad ka soo daahdo arrinkaas si fiican u dhageysta inaad ka soo daahdo waqtiga imtixaanka 30 daqiiqo ka badan 31 daqiiqo haddaad ku timaado imtixaanka ma geli kartid marka la soco imtixaanka inaad ku gasho aad joogto fasalka 30 daqiiqo intuusan bilaabanin ka hor 1 daqiiqo hadday ku darsanto qofka ilaalinaya imtixaanku kuma ogolaan doono ugu dambeyn in luuqad iyo anshax xun qofku uu ku qoro meesha waxa ku yaala iyadana aan la ogolayn arrimaha qofkii la yimaado marka maxaa soo gaari kara saddex mid baa soo gaari karta u fiirso marka hadhowto yeelan arrintu noqonin isku celcelin arrimaha aan soo sheegnay iyo kuwa la midka ah qofkii ay ka dhacaan saddex arrimood mid ayaa ku dhacaysa maadada marka uu ku jiro in laga tirtiro oo eber loogu qoro waa suuragal kor in loo qaado labada maado maalinka uu galahayo laga tirtirana iyaduna waa suuragal imtixaanka dhan in laga reebana waa suuragal waxay ku xidhan tahay waxa uu sameeyay qofku inta uu dhan yahay ayaa la fiirinaya marka ugu yartahay hal maado ayaa ka tagaysa marka ugu daran tahay imtixaanka dhan ayaa laga reebaya ugu dambeyn waxaan rabaa inaan dardaaran yar siiyo oo ku soo khatimo hadalkayga laba kooxood ardayda ayaan rabaa dardaaran inaan siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala tala saaro ducayso dadaal iskuna day inaad inta tabartaada waxba aadan la harin halan la soco wixii aad qortay waa lagu sixi si cadaaladana lagu sixi xusuusnow inaad ku tala gasho sidii xadiisul qudsigii ahaa waxaaga waa camalkaagii bini aadam oo lagu soo ururiyay faman wajada khayran falyaxmidillah calayh waman wajada ghayra dhalika falaa yulumanna ila nafsah waxa aad qortay shaki male waa lagu sixi haddaad cabasho ka qabtana waa lagu fiirin oo la hubaa marka wax fiican meesha ku qor in tabartaada ina dadaal waalidka waxaan rabaa inaan hal arin aan iyagana aan xusuusiyo caruurta dadka imtixaan gelaysa ha la caawiyo ha la dhiirigeliyo ha lala dadaalo inta tabartooda ana ha la siiya meel fiican oo ay wax ku akhristaan waxaa kaloo aan kula dadaalaya waalidka inay u duceeyaan caruurta maaragtay imtixaan gelaysa iyo sidoo kale inay ka ilaaliyaan waxyaabaha buuqbuuqa iyo kala taliyaan qish baa jira iyo dad baa hadda durba usbuucan intaan soo dhaafnay waraaqo suuqa soo geliya dhahaya imtixaankii baanu haynaa oo dad inay lacag ka qaataan isku dayahayay
waxyaabaha noocaas oo kale carruurta kala taliya yaan lacag lagaga dhicin imtixaanka ay qaybinayeen waxaa imtixaankii 2018 kaasina ma aha ka hadda meesha ku jira marka kala taliya carruurta ka waaniya waxyaabahaas kuna kaalmeeya inay si fiican u shaqaystaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan idinka baryahayaa inuu idin guuleeyo guushaan iyo guulo kale oo fara badan oo idin siiyo intaas ayaan idinkaga tahayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.